السلام عليكم. موضوع maanta waxaan ku falanqayn doonaa marxaladii kala duwanaa ay soo martay shirkadda Apple. Assalaamu calaykum. We are delivering today the iPad, the new iMac, the iPod, iPhoto, MacBook Air, iTunes. It's a revolutionary moment. intaana u gudgelin mawduuca fadlan haddaa ku cusub tahay kanalka subscribe saar gambalaalkana taabo si aad mar walba noola socoto mahadsanid. Shirkadda Apple waa shirkad laga leeyahay waddanka Mareykanka taasoo xarumo waaweyn ku leh dhowr waddan, waxayna xarunteeda ugu weyn ku taallaa Cupertino, California. waxayna soo saartaa electronicska, software-da iyo kombiyuutarska, waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah afartii shirkadood ee ugu waaweyn xagga tiknoolajiyadda marka laga soo tago Amazon, Facebook iyo Google. horaantii 1976 nolosha xilligaa jirtana waxay ahayd mid ka duwan mid haatan lagu nool yahay. wax badan oo maanta aad u fududna waqtigaas waxay ahayd mid aad u adag oo aan suurtagal ahayn. isgaarsiinta xilligaa ugu fiicneedna waxay ahayd taleefanada guryaha yaallo, wayna ku adkay dadka intiisa badan inay helaan. tanina waa hordhaca bilowgii tiknoolajiyadda. 1 Abriil 1976 ayaa markii ugu horeysay Steve Jobs, Steve Wozniak iyo Ronald Wayne ay ku heshiiyeen inay bilaabaan shirkad kombiyuutarada sameyso. laakiin saaxiibkood Ronald Wayne ayaa aaminsanaa in waxba ka soo bixin heshiiskaas kana baxay, halka labadii kale ay isku raaceen inay sameeyaan shirkad kombiyuutarada sameyso, iyadoo da'da Steve Jobs waqtigaas ahayd 20 sano, halka saaxiibkiis uu ka weynaa dhowr sano oo keliya. labada nin waxbarashada way ka saaqideen, wax dhaqaalaana ma haysan, waxayna shaqada ku bilaabeen geerasha guriga Steve Jobs, waxayna u guntadeen siday u sameyn lahaayeen shirkad soo saarta kombiyuutarada. waxayna soo amaadeen qalabka hardware-ka kombiyuutarka ku shaqeeyo, sababtoo ah wax lacaga ma haysan. waxayna ballan qaadeen inay muddo 30 cisho gudahood iskaga bixin doonaan deynta lagu leeyahay. intaa wixii ka dambeeyay waxay dhaxda u xirteen habeen iyo maalin u saajeedeen siday u sameyn lahaayeen kombiyuutarkoodii ugu horeeyay. dadaal baa miro dhalay, farxadoodii ugu horeeyay baa kowsatay markii ay dhammaystireen kombiyuutarkoodii ugu horeeyay ay uga magac dareen Apple I. qiimaha lagu iibinayay kombiyuutarkaas wuxuu dhammaa $665, iyagoo xilligaas iibiyay 200 oo xabo kombiyuutaradaas. intaas wixii ka dambeeyay waxay bixiyeen lacagtii lagu lahaa. kombiyuutarka Apple I ma ahayn mid muuq iyo qaab ahaan toona aad u sareeyo, waayo kombiyuutarkaas muusan lahayn shaashad muus, waana bilowgii personal computer. intaa wixii ka dambeeyay waxay u guntadeen dadaal iyo horumar dheeraad ku bixiyeen siday u soo saar lahaayeen kombiyuutarkoodii labaad. isla sanadkii xigana waxay soo saareen kombiyuutarkoodii labaad kaasoo la oran jiray Apple II. kombiyuutarkan wuxuu kaga duwanaa kombiyuutarkii hore, wuxuu lahaa shaashad muus iyo keyboard. 1985 waxaa shirkadda Apple la soo diristay murano ay dhalisay suuq xumo, taasoo eeda dusha looga tuuray Steve Jobs oo ahaa aasaasii shirkadda, waxaana shirkadda iskaga tegay saamiyadii ku lahaana xanaashay saaxiibkiisii la aasaasay shirkadda ee Steve Wozniak. intaa wixii ka dambeeyay waxaa kulan degdeg ah yeeshay dhammaan dadkii saamiyada ku lahaa shirkadda, waxaana la go'aamiyey in shirkadda laga ceeriyo Steve Jobs oo ahaa aasaasii shirkadda. Steve Jobs oo ka xanaaqay waxa ku dhacay wuxuu qiimo jaban ku xaraashay dhammaan saamiyadii ku lahaa shirkadda, wuxuuna aasaasay shirkadda lagu magacaabo Pixar Animation Studio oo ahayd shirkadda soo saarta filimada kartoonada, wuxuuna kaga faa'iiday shirkaddaas dhaqaale aad u ballaaran iyo abaalmarino qaali ah. haddana wuxuu ku xijiyay shirkadda lagu magacaabo Next. 12 sano kadib waqtigii shaqada laga ceeriyay Steve Jobs ay ku beegneed 1997, waxaa shirkadda la soo diristay khasaare aad u ballaaran, taasoo ku dhawaatay in shirkadda albaabada la iskugu laabo. kadib markii shirkadda Microsoft ee suuqa gabi ahaantiisa bala wareegtay soona saartay Windows 95, taasina ay sababtay in loo yeero Steve Jobs dibna loo sasabo si uu shirkadda uga badbaadiyo in albaabada la iskugu laabo. Steve Jobs wuxuu mar kale ku soo laabtay shirkadda Apple, wuxuuna wax ka bedelay maamulkii shirkadda. isla sanad kadib soo laabashadii Steve Jobs, waxay Apple suuqa keentay kombiyuutar aan nuuciisa hore loo arag oo lagu magacaabo iMac. kombiyuutarkan waxay shirkadda ka faa'iiday malaayiin dollar oo Mareykan ah, iyadoo Apple ka soo kabsatay suuq xumadii la soo diristay. 2001 Apple waxay suuqa la shirtimid operating systemka caalamka yaabsaday ee Macintosh operating system, kaasoo shirkadda ka faa'iiday dhaqaale aad u ballaaran. sanadii 2003 waxay Apple soo saartay kaydka muusiga adduunka ugu weyn ee loo yaqaan iTunes,
tan iyo intii Steve Jobs shaqada uu ku soo laabtana waxaa horumarka Apple uu noqday mid joogto ah. 2007 waxay Apple ku dhawaaqday waxa caalamkoo dhan ka yaabsaday, waana bilowgii taleefanka caaqilka ah ee iPhone. iyadoo fikirka iyo ictiraafka uu lahaa Steve Jobs, waxay Apple sanadkaas iib keentay taleefankeedii ugu horeeyay ee iPhone. taleefankaas wuxuu ka dhigay kombiyuutar yar oo aad jeebka ku ridanaysid. 2010kii waxay Apple suuqa keentay product casri ah looguna magac daray iPad, kaasoo indhaha caalamka soo jiitay malaayiin dollar shirkaduna ka faa'iiday. 2011 waxaa cudurka kansarka ku dilay madaxii shirkadda ahna ninkii aasaasay shirkadda Apple ee Steve Jobs, isagoona ahaa ninkii leh farsamada dhisaanka iyo inta badan waxa shirkaddu soo saarto. tan iyo intuu dhintay Steve Jobs waxay Apple ku soo kordhisay barnaamijyadeeda aaladda lagu magacaabo Apple Watch, oo ah saacad ku xirmaysa ahna mobile ah wax ka wacan karto. waxa Apple haatan qorsheynaysaa soo saarista gaariga iskiis isku wada ee aan lahayn darawalka. haddaba markaa ogaatay in wax kastoo aad aragtay inuu sameeyey qof kula mid ah, waa hubaal inay adduunka wax ku soo kordhi karto. 1976 bilowgii aasaaska shirkadda Apple, shaqaaluhu waxay dhammaayeen 2 qof oo keliya. maantana shaqaalaha Apple waa 115,000 oo qof. lacagtii Apple lagu aasaasay xilligaas waxay deyn ama amaah. maantana saamiga dhaqaale ee Apple wuxuu gaarayaa 750 bilyan dollarka Mareykanka ah, waana shirkadda ugu dhaqaalaha badan caalamka. waxaa kaalinta labaad iyo saddexaad kaga jira shirkadaha Microsoft iyo Google. dhismihii lagu bilaabay shirkadda Apple wuxuu ahaa geerishka guriga Steve Jobs. maantana baaxadda dhulka ee shirkadda Apple waa 18 kiiloomitir oo square ah, qiyaas ahaan leeg hal magaalo. waxayna shirkaddu leedahay 470 store oo ku kala yaala 18 dal oo lagu iibiyo waxa shirkaddu soo saarto.